yo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga waa idin salaamay kusoo dhawaada channelkeena mar kale iyo muuqaal cusub ka duwan muuqaaladii hore caawa marti ayaa noo joogto oo waliba waraysi aan la yeelan doono soo dhow magacaaga dadka isbar shaafiyo magacayga waa cabdulaahi cabdul baby waa ku magacay laacib soo jooga faanti ninkan laacib soo jabe al dhahaa cida macnaheeda taqaana laacib soo jabe way taqaana cida kalena hadda laacib soo jabe waa barta ninkan marka hadii aan guda galno su'aalahayna aan weydiin doona cawada ninkan martida noo ah laacib soo jabe ku soo dhaw channelkeena ma dhawahay mar labaad aad baan u soo dhaweynayaa channelkan Shaafi Joorre meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay hagolaga axana subscribe-ka comment-ka like-ka and share waa sidaas gacmihiina fura sadaqada ka bixiya abitaydka loo furo gacmihiina abitaydka loo furo aynkaas weeyaan waxaan u filayaa su'aalihiina diyaar u tahay cawada diyaar waay maxaa diidaa su'aal adag la weydiin su'aasheeda ugu horeysa hadaan soo qabto cabdul baby laacib soo jabe wixii kuugu la yaabka badnaa intaad joogtay magaalada Nairobi inkastoo aad muddo badan joogtay aan u filay inta cumrigaaga u badan inay tahay qisadii kuula yaabka badneed kaala kulanto qof dumar ah bal haddaad noo sheegtid wallaahi kadis waa iga dhigtay faanti hadday noqotona macnaha dhanka dumarkan aad baan u jeclaanahay faanti dumarkana waa haliyay weeyeen faanti meel kasta ay joogaan waa salaamaya dumarka way fiican waa hooyinkiina waa salaamina gabdhaha aad gabdhaha Soomaaliyeed aad u badan yihiin maamooyinka gabdhaha garobada wax dhan kala reebin aad baan u salaamayna meel walba ay joogaan faanti qisada ugu yaabka badneed inaan dumar ah gabar ah yaan isbaranay dhanka social media ah meeshaan iska wada sheekaysanay ka wada xiriirnay ilaa muddo dheer sawir maanta oo kale 7 bilood aan wada sheekaysanay kadib inantii ismaan arki jireen wada xiriir jirnay muuqaal ismaan arkin laakiin dhanka kale koolka qoraalka wala soo wada jireen faanti inantii maxaan ka codsaday macnaha inaan sawirkeeda arko qofka waa ogtahay hadii marka la sheekaysato sawirkeeda u baahan tahay waa sax ina aragto dadka ina ka dhaxbarato macnaha waxay ku noqoto macnaha wajigeeda ina aragto macnaha dhalinyarada hadda jiraan waa sharci ka yaalo qofkii la sheekaysto sawirka arko faanti markii inantii sawir ka codsaday waxay u tireenayeen sawirkayga uu foolxun yahay ina aragto ma doonay waqti badan aan daba orday bilooyin marka anigana waa ka nagi jabay shukaansi caadi iska wada qofkaada arkin maba hilinaysid ma daba soconaysid ilaa wajigiisa waa xiiso kuma gelinay qof hada wajigiisa aragto adiga dareen afkaaga hamiga ku galeyn faanti waa qof taqaan ilaa wajigiisa adina fikirka dooqaaga aad leedahay macna inantan waaba wayshadaan tahay faanti waa tii ku anfici lahayd ama inantii adiga waqti dheer adiga macnaha waqti waa socayna waqti kala caajisina aragtay qof hadii marba sawirna ka hayna aydan mar asoo codsiin adiga qoftii waa u xeelanay qof macnaha hadii markuu adkayso aragtay aniga maxaa qoftan uu adkayso dadku way ka jawaabay ka carraan laakiin waxa uu fiican dumar tan ku adkaysaa aniga waxaan jeclahay tan uu adkayso macnaha inaan aad aan soo dhacsado ma jeclahay rag uu wada badan yahay in gabadha ku adkayso ay raadiyaan waa yahay inta kasto ay yirhiin macnaha dad baa hadii qofku adkayso waa laga xiisa dhacaya laakiin aniga waxaan jeclahay tan uu adkaysaa macnaha daba carraawno oo laga shiidan faanti waa gart marka inantii waa daba carray maalin kamid ah dhahay inaan ku arkaa doonayaan galab casri ahayd inaan ku arkaa rabo sawir web soo dhaafto sheekada inaan ku arkaa waa inaan la kulantaa muuqaalka u baahan hay aan yiri waa gart inantii waxay tiri niyo maanta maalin kale noo dhig waxaan dhahay maanta waa soo diyaariyay faanti waqti marka xabad u socoto waa iska dhisay magaalada kala soo tago la waa gartay marka inantii waxay tiri maanta ma aha maalin kale aan ka dhiganayna waan gartay okay waxaan ku yiri maalin noo qabo adiga maanta ugu darnay laakiin maanta waxaan dhahay kama dambeys maanta u baahanahay waa ku adkaystay waqtiga socotaba maalinta waxay tiri adiga maalin heblow maalin adiga qabsatay maalinta diyaar ah tir sharciga ka yaalina saragno waan gartay waa isballamina waa agtay qof markay ku ballamiso maxay ku ma tii joogtaa meesha imaw telefoonka adin la kala dhuubanay ay taawilid difaaca kaliisan faan oo dadkiisa ku noqon ama lagu gaada camaliya diriska noqon kartaa qof cid ay noqon kartaa faan qof la sawirka kada leedaha dabaqa lagu koraale adiga miya gaaygaasa anigana waa gaabanahay faanti qofta gaar xalay ninka ka helo adiga miya tiri war gubata macnaha telefoonka meesha kala ma adkaas miya ha khayr badan soo gnaa abu macno waa ku khaldama dhici karto waa gartay markii inantii
telefoonkaas waa ma imaaday haa meeshii ma u balamsahaa meeshii imaaday soo bax banaanka dhar noocee wadataa adiga ma soo socotaa ma imaad meesha taaganahay darjiin ahna isku yara dhakbi telefoonka weli anigoo iphone dhigaa gashtay koolka meesha ka qabanaya telefoon soo hadlaya telefoonkaas mashquulinaysaan aan leeyahay ma imaaday waa ku ark intays joogtaa meesha hor soo soco luuqaas soo gal waa soo gala meeshaas soo waa taaganahay inantii adiga ultimately macnaha way aragtay waxay tiri yarka adiga miya ahaa ninka dheeroo cadi adiga macnaa ma dhihi karna ninka gaanuugta ninka dheeroo adiga cad adiga miya ahaa meesha taagan adiga miya ceeb asturaan dhahay meeshan gabataa kale gabadha dheerna soo qaatay iyo qosl marka gabadhii soo baxday shareeda soo xiratay waxay ii yiraahdaan mijarka salaamna iyo warxal maxay saacada adiga miya maasha Allah adiga macnahaas qofka title-ku muuqaal ahaan waan qiimeynayay macnaha sidee aad fahanteen macnaha sabir ayadana macnaha iga haysi macnaha nin dheer waa wallahi ka maxay nin dheer oo ku maleynaysaa ana tahay laakiin sidoo kale waad yarsan tahay maasha sabir alaabo kaamirada hoos aan qaado ma u dirtay dareemi kartaa adiga macnaha waa gartay marka waxay taagan tahay okay adiga miya maasha ku soo dhaweynay waxaan adiga saa ku madeeyay waxaan hadday ka daran tahay maasha Allah waxaan doonayay mis waxaan ma isla macnaha si aan ku moodayay si aan noqotay macnaha اسم الله بسم الله waxaan qof ma taaqiymo ma sha Allah adigu gabdhaha waxay jecel arayada macaan oo soo bandhigay la amaano askar amaan xanta xaqo garadeen shirka naga furdi anigu wajigin maxaan dhahay aan soo furanay adigu wajiga wajigin balance baran luqira istay waxaan wajiga tus adiga ayadu ad keenayso xaafada waxay dhahdaa guriga adigina wadada cayb ay noo tahay aniga waan ka agaabsan waxaan dhahay horta guriga wadada noo dhaanto guriga ka cabsanaya macnaha difaaca ku jira wali wajigiisa aadan aragay macnaha hadii loo dhadana guri soo gal qataata saxul malaya badinayo arintu isbedeshiba ni la qaw gaay lagu garaaca gaayka lagu galaaleeyo ana niman oo six pack in liigiyo waa gitay markii wallahi qoftii gurigii dhahday waa fikiri xisaaba soo dhiftay dhinaca u jeesta waxaan dhahayniyo ama saan ka bedelantahay saa ka fiicanta waa is arkay hadana geesnimo muujiyay waxaan yiri iska daba kaca qoftii waa daba kacay dabaqana la gariyo ilaa shanaadka anigoo daalan macnaha wadnaha gacanta ku haya dhag inta miyaa weli waa shanta la geeyay qol yar martiyan fadhiisanay oo la soo dhabeeyay cabitaan yar cabnay hayla hadu jig madar warma arkin aan ku yiri waxay tahay ma garan waayo waa gartay waa biga daba laakiin codka hada arag codka dahabi leedahay codka idila infaanti waa gartay marka soo fadhiistay waxaan dhahay inta ka badan aniga iska baxaya hada wajiga ay tusiin inanta wallahi qiimo badan la xishood aad baad macnaha xishood dumar wala haray wajigii furtay ayuu dhinac jeestay bal haafa liga tusoo waxaan dhahaa haafka hada way anfacaya inta kale aniga qiyaasay haaf faqri haaf kale anigu ana qiyaasay way tustay goor ma sha Allah waa u bogay waxaan ku yiri okay adiga caadi goor fiyobe waa goor fiyo maanta dhan waxaas la goofna gafuur ku xadhan ruqsan yahay taas aniga macnaha adkaarta hoos ka akhrinay faanti waa gartay marka adiga gabadhii waa maasha Allah waa sheekaystanayo adiga gabdhaha waa gareemkaada ku guurdoona iska jiro dhalinyarada had jirta waa aragtay macnaha waa iska shiid baa u badnaaday waxa dad magaalada macnaha adiga shaafta ku jooga iska badan faanti inta waxa oo kisaa waa sheekada adiga hadallo badan is dhaafsado waa dareemi kartaa waxa ka dhacda macnaha la soo qabtaa macnaha qarab badan isku jirteenayna ka arimihii kala sheegatay faanti waxay dhaasana u baahanahay mustaqbal u baahanahay ku macnaha wadanka ku cusub ee waxay taagantaa mustaqbal u baahanahay aniga waxaan ku yiri saana ahay shukaansiga waxa ii dheer ma lahan faanti intaan aan shukaansiga aniga waxa ii dheer ma lahan dhahay mana magaalada ka baxay saana arkaysa waxaan dhahay guri ugu laabnis ma laha saan ay tahay waxaan dhahay mootadan ku yimaado macnaha isku soo dardaraan dhahay xaafadda dariska soo dhaxmar kana maran amal aniga oo marnaan ku yiri hadda waxaan ku noqonay ma garanayo macnaha luqluqaha maraya inkasta ahaato waqtiga diinta igu silmaan marka inantii kalley anta ka soo tagay soo dhaweysay ka dambe macnaha gabadhii waa gareem kartaa ka aragtay maxay aniga saana u baahanahay mustaqbal hadaad iga baahan tahay guur baa u baahanahay hadaad isla wadaagna ka waran nolosha isla qaybsano waan gartay marka oo dharey qoftu waxaan u naxay macnaha qofti ana waxa ii qaaday way nagu weer qanacday hadana ayadoo ka sii cabsan xilada ninkan waa ciyalka xaafada ay fahmi laada marka waxayna dhahdaa ninkan sa u soo liistay macnaha ma garanayso inaan soo jawaab fahansan laacib soo jabinaa tahay marka waxaan dhahay waa sheekaysan gabadha caadi daacad u ahayd waxay tiraniyo hadii cidii inta ma joogto reerkii inta joogan fahanti kaligeeda joogto maxay dhahday dadaal la joogaa mustaqbalka waqtiga ugu dhamaanayo marka waxay tiri shaqo la'aan iyo isku darsay ka leedahay inaan iska degaan jeclahay marka maxay dhahday hadii
maxaa ka leedahay haddaan is dheer dhagax dhigan abo aan hawshii macnaha soo soo gabagabay gabagabeyn. marka waxaan ku iri okay ani waxaan dhahay sidaan waxaan dhahay maba aniga maba iska waalankeysi waxaan ku iri diyaar waa adigii suu ilaahay ka dhigay noqonaysaa shadaasha way haboon tahay way iska fiican tahay marka waqti isii waa kasoo fikirayaa haddii nin la dhahay guura u baahanahay waad dareemi kartaa waa kabo gacanta qabsanaya fahanti adoo shiidka ah haddii la dhahay guura u baahanahay guura u baahan oo taada meel ul aag marka haa inantii waqti badan adiga macnaha adiga telefoonkeed badnaa aan joojiyey soo raadisay waa qabanayay xaalad maasha Allah waa fiican waxaan mashquul adduunyo ama wala kala dhumo ma taaganahay haddii guur ay bilaa aniga waa gaabsadan fahanti difaaca galan gadaal u barto fahanti haa inantii marka ayadana way soo wacday waxay taagan tahay macnaha qof baa dareemi kartaa way soo xumaysan waxay tiri newsan ku maleynayay matihid qofaha macnaha aragtida inuu ku dhaxsaanay qofka xarunta waa loo sheegaa waxaan dhahay xarunta kugu sheegaa aniga iska wadahay haddii nafsika waa dareemi kartaa qofka muuqaalka u malaynaan dhahay dibiska bis ma ahan qof waxaa la ogaan karaa shiidkeenimadeeda inaad dareento waa u baahan tahay marka adii finally gabadhii waxay ku dooramaatay runtaa u sheegay markaan arkay aniga macnaha qofta waa u danqadan fahanti waxaan dhahay wallaahi waxaan dhahay walaale macaanay haa telefoon wali weji waan ka cabsaday telefoonaan kor u gashaday runtaa u sheegay waxaan dhahay walaale kolley qofka qalbigiisa wuu ku raaci karaa waana isjeclaan kartaan laakiin haddii gacmo wax maran wax ma qaban karaan isma qaadan fahanti waxaan dhahay aniga naftirkeeya macnaha magaalada qataataa ku joogaan hallugaa ku taaganahay marka waxaan ku yiri walaale macaanay intaas macnaha shukaansi inay ahayd marka dhalinyarta had jiraan waa dareemi kartaa waxaan ku yiri kolley hortaa hor allahu ka samato bixi ma fahanti marka ayadana sikeeda ugu qaracday haa waqti macnaha ayada ka oobay runtaa fiican ma fahanti gabadhii macnaha qoftaas runtaa u sheegay waxaan dhahay allah samaha ku furo saadaasha dhankeeda marka ayada runta daan u sheegay maxay ka oranaysaa waxay dhahay diyaar weyniyo qoftaas niyo taas maaniga wax u danqaday macnaha iga soo go'day taas uu yaabka badnaan macnaha leegaada macnaha hoos liga soo galiyay wixii kale aniga dadka gaadi jirnaa ana qofkii adiga wajigiisa asoo ka qarsaday wixii dhan haa dana macnaha ingilis arkay macnaha qof qurux badan hadana u baahan guur degdeg macnaha hadii gabadhu ku qanacday shin ahaysan waxay ogtahay inta magaalada joogana anigu macnaha inay u shidan tahay haa mid kale aan ka dhaxgale mid kale magaalada Nairobi oo gabdhaha qaldo jirta horta magaaladan ninka taajirka kan dhaxdhaxaadka iyo kan jabka maran anaga camal isku dhex jiraan ayaga dhan waa dhar iska shaarkooda oo cad dhamaan wada ceeshaan marka gabara magaalka imaanayso ninkan camal arkaysa ama aniga camal oo shiid ah shaarka laakiin iska soo dhaqan iska soo feeraysan anaga way soo aniga haweenka waa leeyno waaltangaas waxa ka daran gabadha waxay arkaysaa wiil dhalinyaro ah labisan markaas waxay moodaysaaba ninkan inuu dhagsan yahay asagana tiisaaba haysataba wax jira waa marka gabdhaha dee degdegi lahaadeen oo aadan jecel iska qaadi lahaadeen dumar guli hadaad meel uga dhacday kali sharaf kuma tahala adiga naftirkaaga waa sigsigmaysan fahanti gabdhaha hala ilaaliyo laga dhaafo beenta loo sheegayo ragga qaar aan ogaay waa ku jirnaa anaga xataa waa ku jirnaa laakiin waa dardaaran dad faran dheerna way jiraan abitaad ku furinaa jira macnaha through the day maalin kasta macnaha gabdhaha ugu talagalay macnaha inay been u sheegaan saaraan raabno teeda kale gabdhaha midab ooga yaababa ayaga kale qofka beenta sheegayo maxaa ay ku jeclaadeen haddaa run u sheegto uu qof kale been u sheegay kan beenta sheegaya ay raacayaan wallaahi barabyo taas way jirtaa runtan la isku nacay ilaa hadda waan la yaabay teeda kale waxay kala kulmaan dhibaato oo been iska raaceen waxba aan kala kulmin maahan mustaqbalkooda ku dhumo waqtigooda ku dhumo hadba si ay ku noqdaan marka gabdhaha naga dhaafo waalidan sharaftiina ilaaliya ragga gabdhaha sharaftooda hala ilaaliyo caawininkan ayaanoo marti ahay dad badan inta way soo fariisan doonaan kamid ah dhalinyarada reer Nairobi ninkan channel uu leeyahay Abdul Baby official ugu qoran ha lagu yaaco asxaabta qaaliga ah soo yaacdi gacan abitaadka sida maartay ufura waxaan lacag ma ahan walaalkana de awaalu kaaga heenaya wax lacag kaaga bixisana ma lahan dhac le ku sii commentingana dhac ku sii fikradaada ka soo dhiibo asxaabtaada la wadaag commentigaas noo soo qiib waxa muujada aan leedahay adiga aad ka fikirsan tahay nolosha cidii doonaysa in inta ka soo muuqatana way ka soo muuqanaysa commentiga hoos
teeda kale meelaha liiga helo oo liigala soo xiriiri karo sida Instagramka, Facebooka, Snapchatkana waa de hadii jeer waan descriptionkan soo dhiga waad igala soo xiriiri kartaan meeshan oo soo fariisanaysaan ninkana channelkiisa lagu yaaco sida ii sheegay wax badanna waan soo wadnaa wax badan baan soo wadnaa in badan waa la bootay laakiin de bootadu waa soo dhamaantay de dhamaatay filimo hawada ku socdaan iyo atrishooyin kala kacsan meeshaan ku arki doontaan hadal ma la wadaaya hool la qabtaa la rabaa sidaas iyo nabadgelyo nagu kala yaaciid samawacan adeer iska yacde muuqaalku u dhamaaday commentiga wax ka soo bixi like-ta dhac subscribe-ka ka ilaabin bye subscribe comment right down yes and you share your friends saaxiibka kale ha usii sheego waa caynkaas dunida ha gaarto sidaas iyo nabaadiino madaxa noo saarantiin